kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwada ugu doorka roona waxaa kamid ah madaxda dawlad goboleedyada dalka oo Muqdisho kusoo wajahan iyo xubnaha mucaaradka oo rajo wanaagsan ka muujiyay shirka ka furmaya Muqdisho ra'iisul wasaare Roble oo diiday talaabo filla Soomaaliya ay ku doonaysay inay ku maamusho doorashada dalka ka dhacaysa dawladaha Soomaaliya iyo Kenya oo heshiis ka gaaray muranka kiiska badda madaxweyne Farmaajo iska fogeeyay dibadhici ku yimid doorashada dalka intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu corona warka iyaga ahaatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan fadlan hadaad nagu cusub tahay subscribe da channelka sidoo kale like sar asxaabtaadana u share galay fiidiyoga mahadsanid madaxda dawlad goboleedyada dalka ayaa ku soo wajahan magaalada Muqdisho iyadoo xubnaha mucaaradku ay rajo wanaagsan ka muujiyeen shirka Muqdisho ka furmaya iyo doorashada dalkaba madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dalka ayaa saacadaha soo aadan waxa la filayay inay soo gaaraan magaalada caasimadda ee Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka wada tashiga ah ee arrimaha doorashooyinka looga hadlayo isla markaana ay wada qaadanayaan madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya dhammaan shanta madaxweyne dawlad goboleed ee dalka ayaa la filayaa goordhow inay ka soo degtaan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaana madaxdan ay ka qayb galayaan shirka maalinta Birita oo Khamiis ka furmaya magaalada Muqdisho isla markaana looga hadlayo aayaha doorashada dalka ka dhacaysa iyo shaqaqooyinkii ka dhashay muddo kordhintii loo sameeyay hay'adaha kala duwan ee dawladda ee dhicisowday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horay waxa uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ugu wareejiyay hirgelinta arrimaha doorashooyinka dalka waxaana uu madaxda dawlad goboleedyada ugu baaqay in ra'iisul wasaaraha ay kala shaqeeyaan doorashada dalka ka dhacaysa isagoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo mas'uuliyadaas qaadaya uu 20ka bishan uu ilaamiyay shir magaalada Muqdisho ay isugu imaanayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada isla markaana lagu soo afjarayo khilaafaadka arrimaha doorashooyinka dalka ka dhacaya ee haatan cakaran xubnaha mucaaradka oo dawladda ka soo horjeeda ayaa dhankoodu rajo wanaagsan ka muujiyay shirka maalinta Birito ka furmaya magaalada Muqdisho waxaana ay madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqeen in horay loo socodsiiyo shirkan oo doorasho dalka gaarsiin kara sida ay sheegeen xukuumadda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Roble ayaa la tilmaamay in garwadeen ay ka tahay shirkan isla markaana ay doonayso inay ku soo afjarto arrimaha xasaasiga ah ee khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashooyinka waxaana arrintan ay timi kadib markii uu fashilmay muddo kordhintii loo sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoona madaxda dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya loogu baaqay in shuruudo hor leh aysan la imaan kuwaas oo lagu carqaladeynayo heshiisyadii la gaaray iyo sidoo kale in dalka ay doorasho ka dhacdo ra'iisul wasaare Roble ayaa iska diiday talaabo ay filla Soomaaliya ku doonaysay inay ku maamusho doorashada dalka ka dhacaysa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu diiday qorshe filla Soomaaliya madaxdeedu ay ku doonaysay in ay ku wareejiso maamulka doorashada xubno u dhow filla Soomaaliya waxaana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu iska riixay isku dayga madaxtooyada filla Soomaaliya ay ku doonaysay inay ku soo fargeliso hawlaha la xiriira hogaaminta arrimaha doorashooyinka dalka ka dhacaya sida warar hoose oo la ogaaday ay tilmaamayaan waxaana warar lagu kalsoonaan karo ay sheegeen in ra'iisul wasaare Roble uu diiday soo jeedin ka timid madaxtooyada filla Soomaaliya oo ahayd in Cabdi Raagi Cali oo ah la taliyaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee arrimaha doorashooyinka lagu wareejiyo xafiiska si uu ra'iisul wasaaraha uga shaqeeyo shirka 20ka bishan May ka furmaya magaalada Muqdisho oo ay wada yeelanayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa talaabada madaxtooyada u arka isku day la doonayo in lagu carqaladeeyo dadaalada socday arrimaha doorashooyinka isla markaana madaxtooyadu ay ku doonayso in saameyn ay ku dhex yeelato waxaana uu sheegay intaasi aysan dhici karin ayna ku kalsoonaadaan dadaalada socda oo ra'iisul wasaaruhu uu wado iyadoo dhinaca kalena loo dhigay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble talaabadan uu ka hor yimid ay noqon kartay mid dhaawici karta kalsoonida ay mucaaradku ku qabaan maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha kale ee u arkay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu doorashada dhexdhexaadka ka yahay ilaa iyo hadda wali ma cadda sababta rasmiga ah iyo ujeedka ay madaxtooyadu ka lahayd arrinkan in xubintan muhiimka ah ee ka tirsan madaxtooyada lagu daro shaqada uu wado ra'iisul wasaare Roble balse madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horay loogu eedeeyay in uusan doonayn in uu fursad siiyo xubnaha musharaxiinta ah iyo sidoo kale howlwadeennada kale ee iyagu wada howlaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan
waxaa sidoo kale jirtay dhaliil ku aadanayd in ay jirto in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uusan doonayn in fursad uu siiyo ra'iisul wasaare Roble taas oo uu ku muujinayo hufnaanta uu saamilayda siyaasadeed ugu dhaxdhaxaadinayo madax banaanida oo ra'iisul wasaare Roble isagoo go'aan ahaan uu qaatay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa laga sugayaa in uu qaado tallaabooyin xoojinaya filashada laga rabo ee ah in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu joojiyo isla markaana uu qaado balantii uu la galay shacabka Soomaaliyeed iyo xubnaha mucaaradka dawladda ka soo horjeeda taasi oo ku aadanayd in doorasho wada ogol ay dalka ka dhacdo uuna muujiyo in uu madax bannaan yahay saameyn tabanna aysan ku lahayn madaxtooyada Villa Soomaaliya iyadoo taas hore ay uga dalbadeen qaar ka mid ah midowga musharaxiinta. dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa heshiis ka gaaray murankii kiiska badda. warar soo baxay saacadihii la soo dhaafay ayaa waxa ay sheegayeen in dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ay heshiis ka gaareen murankii dhanka badda ee labada dal ka dhaxeeyay. mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa dalkaasi Kenya oo ah wargeyska The Star ayaa waxa uu sheegay heshiis cusub oo konton ay Soomaaliya iyo Kenya ka gaareen khilaafkii dhanka badda waxaana uu sheegay in dhawaan lagu wado in magaalada Dooxa ee dalka Qatar heshiiskaasi lagu kala saxiixdo. dawladda Qatar ayaa la sheegay in kaalin weyn ay ku leedahay arrinta isla markaana dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ay kala hadashay arrinka kiiska badda in lagu dhameeyo wada hadal. dawladda Qatar ayaa saameyn weyn ku leh shirkadda shidaalka Talyaaniga ee Engie oo shidaal sahmin ka samaysa xirmooyin ku yaala dhulka ay muranka gelisay dawladda Kenya. heshiiskaas oo ay gashay dawladda Kenya shirkadda shidaalka Qatar ee Qatar Petroleum ayaa waxa ay sidoo kale heshiis la gaartay shirkadaha shidaalka ee Faransiiska taas oo iyadu ay ku helinayso Engie oo ay leedahay 25% xirmooyinka shidaalka kuwaas oo aan ka tirsanayn dhul badeedka lagu muransan yahay ee Kenya ay muranka gelisay. ma jirto wali wax war oo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya oo looga hadlayo arrinta ku aadan in kiiska badda lagu dhameeyay heshiis isla markaana magaalada Dooxa heshiiskaasi uu ka dhacayo. sidoo kale maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee dalka Holland oo dhawaan qaaday kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaan wali go'aan ka soo saarin waxaana wali maxkamadda taagan qareenada u doodaya Soomaaliya balse Kenya ayaa iyadu iska diiday isla markaana ka baaqsatay inay ka qayb gasho dacwadda maxkamadda taalay. madaxweyne Farmaajo ayaa iska fogeeyay inuu ka dambeeyay dib u dhici ku yimid doorashada dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maqaal uu ku qoray jariirada Foreign Policy ee dalka Mareykanka ka soo baxda ayaa waxa uu ku sheegay in aan lagu eedeyn karin in dib u dhici doorashada Soomaaliya ku timid in isagu uu ka dambeeyay. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in xubnaha mucaaradka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay ka dambeeyeen arrintaas isla markaana waxa uu sheegay in loo baahan yahay in iyaga lagu eedeeyo arrimihii doorashada ee dalka ay dawladdu ka qaban lahayd. mucaaradka farmaajo iyo madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa ku eedeeyeen 4 sano ee uu xilka hayay madaxweyne farmaajo uusan waxba ka qaban sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah isla markaasna uu arrinkaasi ku marmarsiyoonayay. waxa uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku dooday in tan iyo markii uu xukunka la wareegay 8 Febraayo 2017 ay ka go'nayd in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah si shacabku ay u helaan awoodda ay ku dooran karaan qofka ay doonayaan. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tilmaamay in khilaafka uu salka ku hayo rabitaanka dawladdiisa ee ah in dalka ay ka dhacdo doorasho ay shacabka codkooda dhiibanayaan iyo maamul goboleedyada oo uu sheegay in iyagu ay rabaan doorasho dadban oo awood siinaysa dad kooban. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale maqaalka uu ku qoray jariirada waxa uu ku sheegay in isaga oo xukunka aqbalaya heshiiskii 17 Sebtembar 2020 la gaaray uu aqbalay balse isla heshiiskaas uu ka socon waayay madaxda dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. shir ay madaxda dawladda iyo maamul goboleedyada dalka ay ku qaateen magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug ayaa fashil ku soo dhamaaday. shirkaas oo dhacay iyadoo maalmo ay ka dhiman yihiin 8 Febraayo oo madaxweynaha madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku ekaa balse shirka oo lagu kala tagay ayaa waxa ay labada dhinac ahaayeen kuwa midba midka kale uu ku eedeynayay waxaana shirku uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan. wali waxaa jirta haatan baaqdin xoogan oo laga qabo shirarka lagu xalinayo arrimaha doorashooyinka isla markaana la filayo in labada dhinac ee madaxda dawladda iyo maamul goboleedyadu ay shuruudo adag oo hor la isku xiraan isla markaana arrintu ay noqoto mid cakiran oo la kala socon waayo. maamulada Puntland iyo Jubbaland iyagu waxa ay wataan shuruudo ay doonayaan inay hor dhigaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya taas oo
laga baqdin qabo in ay dhibaato hor leh ku noqoto dadaalada lagu bixinayo in doorasho ay dalka ka dhacdo. Dadka iyagu sida aadka u doorasho arrimaha doorashada Soomaaliya ayaa walaacan iyagu qaba waxaana ay ugu baaqeen madaxda dawladda iyo maamul goboleedyada in shirarka lagu xalinayo arrimaha doorashooyinka aan la siyaasadayn isla markaasna doorasho wada ogol ah sidii ay ku dhici lahayd la sameeyo oo tanaasul la wada qaato. gudaana daawadayaal warkeed kala socoteen Warsida TV oo naga inta nabadgelyo.